السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال أصحابتنا تكون شعلنا هيو دمانتين واحد لنا هاي وقت جايدين تهاي وعنا ونكسن يبنوا برامج كله حيس بدن وحق رباعي قفديا نولالك قصفة يسود كله عبد الرشيد لنا نع حنكال لنا مانتا سيدا نقنا هاي بوحة صوبة تي إن قبله لدباتيو هدي هلا هيدي كوفسي haddii ay ahaan lahayd in waxyeelo loo geysto oo la jirdilo oo la dhibaateeyo haddii ay ahaan lahayd in muuqaalo xunxun laga baahiyo ama laga faafiyo gabdhahana saan ognahay waa masaakiin waan u baahanahay sinaba ragga ogama maarmaan gabdhaha haddana saasay tahay mar walba way dhibaateeyaan gabdhuhu waa masaakiin ma mudna in la dhibaateeyo waxaa maanta aan wax ka weydiin doonaa arrinta taagan iyo weliba iyagoo markaasi baaqo diri doono walaalada cabdirashiid iyo sidoo kale qaasim soo dhow waan dhowahay asxaabtana waa salaamaya meel walba aad joogtiin waxaa leeyahay namaste cid garanaysa midda si wanaagsan salaam ay cabdirashiid abu soo waa maasatahay nimcaladan iyo asxaabta ku taxan janalka nimcaladan waa marka koobaad ma ahan maleeyo markii koobaad aan ka soo muuqano aan idin ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad wixii ay dadkana daawanaya in subscribe-ka aadna waa caawidaan oo like-ta iyo share-tana aad notify-fisaan arrinta aad mawduuca soo bandhigtay maanta ee dhibaatooyinka loo geysto gabdhaha Soomaaliyeed ama hablaha Soomaaliyeed ama dumarka Soomaaliyeed waa mawduuc dabcan gudaweyn una baahan in أنا waxaan qabaa mawduucan in idaacad walba oo ku hawsha Soomaaliga in loo sameeyo barnaamij wacyigelin ah oo lagu wacyigelinayo gabadhfalada iyo dhibaatada loo geysanayo dumarka Soomaaliyeed waan ku dhownahay nimcaladan iyo asxaabteedana waxaan leenahay hala taxadaro wixii ragahow gabdhaha ka taxadara ka cabdirashiid ahaan gabdhaha saan ognahayba iyo muuqaalo badan oo aragtay social media aad ku aragtay in gabdhaha loo dhibaateeyo ayaa haatan hadii la kufsi ahaan lahayd gabar yar oo 3 jir ama 4 jir oo la kufsaday waad aragtay waxaad aragtay nin xaaskiisa dilay waxaan macno lahayn ku dilay waxaad aragtay sidoo kale gabar intee jacayl ugu abuuro hadana muuqaalo xunxun laga baahiyay iyo waxyaalo kale fara badan oo halkan aan ku soo koobi karin maadaama idinka hadda aad tihiin ragga hataa waxa maanta rag magaca rag ku yimaado aad ka mid tihiin oo garabkaygana aad fadhidaan maxaa ragga ku sababay in ama maxaa ku qasbay inay gabdhaha xumeeyaan ayagoo la ogyahay gabdhaha inay yihiin hooyooyin inay yihiin walaal inay yihiin xaasaskiina inay yihiin inaad dhali doontaanba maxaa inay ku sababay inay dhibaato u geystaan gabdhaha nimcalada ma santa mar labaad arrinta ragga Soomaaliyeed qaar ka mid ah gabadhfalka sameynaya waxay arrintaas taabanaysaa nin kaste oo magaca oo nin Soomaaliyeed oo qayb ka noqonaya dambiga uu sameeyay ama ay sameeyeen koox yar oo wax magarata aha ama aan anshax iyo akhlaaqtoona lahayn haddaan soo dego mawduucan arrintan dhibaateynta ama gadaafaynta loo geysanayo hablaha Soomaaliyeed horta gadaafaynta ama jaa'ifaynta dhibaateynta qof dumar ah loo geysto waxay ahayd mid soo jireen waxaana mar walba gundhig u ah arrin walba oo taagan arrin walba oo dhacda arrin walba imaata gundhig bay leedahay wax saldhig u ah haddaad aragto bulsho ee gumeynaysa xumaynaysa gadaafaynaysa jaa'ifaynaysa la dagaalamaysa cirib tiraysa waxaan u cunnamin ku sameynaysaa hablaha muslimaadka ama hablaha caadiga ama muslim ha noqoto ama gaal ha noqoto saawaa kuwa Soomaalida ee birmageedada ah qof ku sameynaya gundhig waxa uu ah 1 iyo 2 iyo 3 waxa inta uu ah aabbo iyo hooyo waa jahli tan dib ugu noqono xilligii zaman jahligii gabdhaha xilligaas noolaa xilliga jaahiliga noolaa qabla islaam iska daa in la xumeeyo la caayo la dilo waxay gaadhay heer iyada oo nool gabadha la duugo ama la aaso oo nolosha lagu aaso waxay xilligaas jirtay oo soo martay xilligii zaman jaahiligii gabadha haddii uu nin ka dhinto iyada oo maxaa la yiraahdaa hal mar orada iyada oo habeen macnaha marka aan curaaninba oo ilmo dhalin ugu baa iyada oo 10 cunug haysata haddii marba nin ka dhinto
waxay ku jir intii la xidho baa geed lagu xidhi jiray qabays baa laga ilaalin jiray wax kastoo naafada liyo 7 sano ku xidhnaan jiray geed baa lagu xidhayaa macnaha waa heerkay soo marisay min jaahiliga markay diinteena islaamka imaatay quraanka uu ka hadlay weydal mawuudatu su'ilat kuwii ay aaseen iyadoo nool ilaahay subxaanahu wa ta'aala markii qaan wuxuu la weydiinaya Umar bin Khattab oo garanaysaan dabcan diinta meesha ka soo istaagay iyo wuxuu soo maray oo ahaa amiirul mu'miniin wuxuu yiraahday waxa igu macnaha waxyaalaha ugu dareenka badan oo xasuusto gabadh uu dhalay oo qabrigeedu uu qoday iyadana garkiisa carrada qabriga soo qoday ayay ka tirtirisay macnaha waa heerkay soo martay markay diintu imaatay ee diintu timaaday way xoreysay diinta islaamka hablaha dumarka hooyooyinka caalamka muslim iyo gaalba ha ahaadaan way xoreysay waxay ka qaaday xayndaab iyo cadaab iyo ciqaab ay ku jireen oo ahayd gabadha in iyadoo nool la aaso in markii ay maxaa la yidhahdaa ay ninka ka dhinto la xidho 7 sano meel ay ku xidhnaato ama ka badan ay ku xidhnaato waxay soo maray macnaha dhibaatooyin aad badan bay qabla islaam ay haweenku food saari jireen ama la soo darsi jirtay laakiin markuu islaamku yimaaday diinta soo degtay diinta naseexada macaan imaatay dadka haweenkii waa la xoreeyay waxaa la yidhahdaa haweenka muslimaadka ah qof kasto ama muslimaad ama gabadh ahaato qofka ibnu aadamka ilmaha yarka markuu dhalanayo waa muslim laakiin waxaa gaal ka dhiga ama muslim ka dhiga hooyada iyo aabihi siduu nabiga sal ly slam sheegay marka xilligii hore markii ninka la gabadha ku dhalatay wajigiisu madoobaan jiray nin ceeb dareemay wuxuu aantay ceeb dareemay ka carari jiray beledka yatawaara min alqawmi min suu'in ma bushira bihi ayadussuhu min at-turabi ala saa ma yaxkum marka quraanka marka hadlayay ninka marka loogu sheego marka lagu dhaqo xaaskaaga gabadha dhashay ya wuxuu ahaan jiray nin wax xun sameeyay wajiga madoobaan jiray wuu isturi jiray maxaa weeyaan oo wuxuu ahaa nin aad uga baqi jiray ceeb weyn laakiin islaamkii wuu xoreeyay wuu asturay gabadha ka 7 sano iyo ka badan wuu xirtay geedka waxa la afar habeen u kaad qasbo afar habeen 10 bari ha loo kaadiyo oo markay ciidada ka baxdo ha la guursado waa la xoreeyay dadkii la mid tahay xuquuq ay la mid tahay waxa la siiyay waxyaalo badan oo faa'iido ah oo diinta islaamka ha is asturan baa la gabadha hada qaawanayd ee meelaha lagu kufsan jiray waxa la yiraahdaa ha is asturan ninkii kufsi sameeya xad bilaad soo jaaray waxa la yiraahdaa ninkii gabadh dhalinyaro ah oo gabadh kufsada ama macsi sameeya hala garaac 85 jawaab lagu dhufto ninkii weyn ee mar guri maray ama gabadhii weyn ee mar guri martay ee xumaan samaysa ama macsi samaysana dhagax lagu dilo xabad lagu dilo lama oranin tuuriyaha lagu dilo lama oranin hal la marjiyo lama oranin hal intii la aaso oo qaarkeeda hore qaarkeeda dambe dhulka loo galiyo qofka ama ninka qaarkiisa hore qaarkeeda dhulka loo galiyo madaxa sida dhagax looga wada hal dilo macnaha waa zuuritaan la zuulinayo inay dhacdo faraxumayn inay dhacdo kufsi inay dhacdo gogol dhaaf marka wax kasta oo maanta dhacaya gunaanad hundigiisu wax kasta oo maanta dhacaya hadday faraxumayn tahay haddii ay tahay nin masayray oo xaaskiisa ka masayray oo gabadhi saa u gadaafeynaya saan hadaba arkayna muuqaalkii arrinta ka dhacda wajeer hadday tahay nin ama xaas ninkeeda gubaysan waxaa meesha ka baxay ku dhaqankii diinta islaamka markii diinta islaamka faraha laga qaaday waxaa banaanka usoo waxay raggii noqdeen dugaag gabdhihiina waxay noqdeen cidood mayeeraan dilibaax iyo shabeel iyo haram cad lagu sii dhexdaayo ugaari geri beeceed ari loo geeri maxay samaynayaan way harufayaan way dilayaan way cunayaan way ugaarsanayaan iyada oo eelada oo maasha Allah garnuugti iyo gorayada iyo xayawaanka duurjoogta ah ee mayeedhaanka la yiraahdo cidida ku qaraabanin hadday webiga imaadaan yaxaas baa u dhex fadhiya jeer oo iyada oo markay afsaabiisu waa yaxaas baa la boodi hadday banaanka joogtana waxaa ugaarsanaya shabeelkii libaaxii dhurwaagii yeydii waxba ugaarsanaya marka hablaha Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed ana waxaan aaminsanahay ka Cabdulshiid ahaan caqabad walba oo maanta taagan inay tahay mid ay saldhig u tahay diinta oo laga hajir diinta oo laga tagay macsidaas ku badatay fuxshaas ku imaaday hadda ninkii gabadh 3 sano jir ku soo farax 3 sano jir maxaa laga raadinay waa iimaan beel ninkaas soo noocaas soo iimaan beelay waxaan aragtay inuu reer qabay ama reer soo maray ama nin weyn oo mukallaf ninkaas saytu shariicada islaamka waxay ka qabtaa in ninkaas xad laga oofiyo xeer baa la aadaya gabadh baa nin gubaysa xeer baa la aadaya nin baa gabadh nin weyn oo reer gabadh kufsanaya xeer baa la aadaya oo 4 qaalmood loo iyo $200 $500 $500 la qaadanaya
marka dulmi iyo xaq darro iyo maxaa la yidhaha diinta oo laga fogaaday ayaan u aaminsanahay inay hooyo iyo aabbo u tahay gadaafaynta faraxumaynta ku ciyaarka iyo maxaa la yidhahdaa kudibira dhacsiga loo geysanayo hablaha Soomaaliya